jacaylkii ka dhashay baraha bulshada natiijadii u dambaysay ee uu ku soo dhammaadayna ay noqotay murugada. qisadani waxay dhex martay wiil iyo gabadh iska bartay baraha bulshada, sidaana uu ku dhex maray jacayl la yaab leh. bal haddaba taariikhdii jacaylka dhex maray iyo waxyaabihii uu ku saabsanaa ku soo dhowow. maalin maalmaha ka mida ayay gabadh la odhan jiray magaceeda Faryaad, iyada oo ku jirta baraha bulshada wakhti habeenku xilli dambe ahaa. haddaba Faryaad waxay ahaan jirtay gabadh deggan oo xishood badan. wakhtigeeda inta ugu badanna waxa ay ku qaadan jirtay akhriska iyo daawashada muuqaalada qisooyinka jacaylka ee la soo geliyay baraha bulshada ee kala duwan amaba internetka dhammaanba. bal haddaba habeenkaasi wuxuu ka duwanaan doonaa dhammaanba habeenadii soo maray. waxay xilli dambe farriini uga timi nin la odhan jiray Cabdiraxmaan magaciisa, waxaanay furtay farriintii u soo dhacday sida ay ku bilaabmaysay farriintani oo ahayd si ixtiraam iyo karaamo aad iyo aad u mudan ah. waxaanay ku bilaabmaysay sida tan: assalaamu calaykum walaal, waan kaa helay fikirkaaga iyo qoraallada aad soo dhigtay boostiyadaada. bal haddaba Faryaad markii ay aragtay kamay jawaabin su'aasha ama farriinta uga timi Cabdiraxmaan, balse markii ay seexatay waxaa ku soo noqnoqday ereyadii naxariista lahaa ee Cabdiraxmaan soo qoray. meesha ay joogto oo ahayd gurigooda ayay habeenkii ku soo xasuusatay. ugu dambaynna waxa ay dib ugu noqotay internetkii. kabacdi waxa ay ka jawaabtay salaantii oo ay ku celisay salaan la mid ah. halkaas ayaanay ka bilaabantay qisada jacaylku. maalmihii waxa ay noqdeen toddobaadadiina waxa ay la gaadheen inay bilo noqdaan. bilihii ayaa sii socday, waxa ay noqdeen sannad. intaa ka bacdi waxa ay noqdeen dad aad isugu dhow, maalin kastana kala hela farriimo aad u fara badan, wada sheekaysta. taasina waxa ay sabab u noqotay in ay dareen jacayl oo aan xad lahayn isu qaadaan, balse weligood ismay arkin. qof waliba qofka kale wakhtiga waxa uu u qabaa baahi aad iyo aad u dheeraad ah, heer ay gaadhay in aanu seexan qofna isagoon qofka kale la hadlin. intaa ka bacdi Cabdiraxmaan waxa uu si dhaba ugu qanciyey inuu mustaqbalkeeda noqon doono. bal haddaba Faryaad waxa uu rumaystay qalbigeedu riyadii maalintaas oo ahayd maalintii koowaad ee ay kulmaan. ballantii ay ku kulmayeenna ay miridho saacado wax ka yari ka hadheen. Faryaad aad iyo aad bay u faraxsanayd, sababtoo ah kulankay ugu horreeyey iyo maalintoodii ayaa daqiiqada ka hadheen. waxaana ay diyaarsatay dhar aad u qurux badan iyada oo faraxsan. qalbigeedana waxaa ka buuxay rajo aad iyo aad u fiican oo markaa ay ku riyoonaysay, balse qalbigeedana ay run ugu sheegtay. dhaqaaqeedii ugu horreeyey ee ay gurigooda ka soo baxdo, isla goobtii ay ku ballameen ayaa ay isi soo taagtay. saacado badan ayaa ay taagnayd. ugu dambayntiina waxay isku dayday inay taleefankiisii garaacdo, balse taleefankiisii waa daansan yahay. farriimo badan oo isdaba jooga ayay u dirtay. natiijadiina waxay noqotay in aan laga soo jawaabin farriimihii badnaa ee ay dirtay. ugu dambayntiina meeshii way iskaga tagtay. balse maalmo ka bacdi waxa ay heshay runtii oo xanuun badan. Faryaad ninkii ay jeclayd waxa ay heshay xogtiisii. kabacdi waxaa loo sheegay ninkani inuu 2 xaas lahaa, oo midi isla goobta ay joogto deggan yahay, midina goobta uu ka fogiyo magaalo kale deggan yahay. ugu dambaynna waxa uu u sheegay in uu ku ciyaarayay, balse aanu diyaar u ahayn guur iyo jacayl. Faryaad waxa ay ka qoomamaysay wakhtigii faraha badnaa ee ay jeclayd, waxaanay dareentay qalbi jab aad iyo aad u daran. ereyada ay ku soo celcelinaysay waxaa ka mid ahaa: sidee ayaa qof aanan weligay arag aan qalbigayga ugu dhiibay?
waxa uu noqday jacaylkii ka bilaabmay baraha bulshada ugu dambayna natiijada xun ku soo dhammaaday balse Faryaad cashar aanay ilaawi karin ayay ka baratay bal haddaba jacaylka dhabta ah waxa uu u baahan yahay run kalsooni iyo labada qof ee jacaylku dhex marayo oo si dhab ah isu arka ma noqon karo jacaylku fariimo keliya iyo hadallo macmacaan oo dhinaca baraha bulshada la isu mariyo wax ka xanuun badanina ma jiraan qof aanad weligaa arkin oo aad qalbigaaga u dhiibto ka bacdina ka qoomamayso subscribe da YouTube-ka haddii aad jeceshiin qaybta labaad ee jacaylka inaan idin soo gudbiyo dhinaca commentiga noogu soo qora